maanta waxaan joognaa degmada Kaaraan oo ah degmada aan ugu jecelahay degmooyinka gobolka Banaadir maadaama aan ku soo koray dhismihii laamiga ee ka soo bilowday Tarabuunka ayaa maanta wuxuu joogaa isgoyska degmada Kaaraan waxaan uga mahad celinaynaa ganacsatadii dhistay iyo maamulka gobolka Banaadir oo ka garab siiyey iyo shirkadda Kulmiya oo dhismahaas fulinaysay waxaan ka rabnaa dadweynaha degmada Kaaraan wadada inay ku daraan 1 kiiloomitir oo ilaa Xaliimahita ah inay ku daraan ayaan ka codsanaynaa oo isbiirsadaan waxa la yiri ummadii dadaashay wadankeeda daryeesha ducaa iyo ammaan mudan codsanaynaa dadweynaha degmadan ku nool oo wadada maraya oo ay dan u tahay qof kasta wixii uu ku bixiyo wadadaas waa sadaqo jaariye ah oo aan ka dhamaanayn adigoo masaajid dhisay iyo adigoo wadada dhisay ayaa isku mid ah haddana adiga marayo ku intifaacaya waxaan codsanaynaa ummadda muslimiinta ee degmadan ku nool inay 1 kiiloomitir ilaa Xaliimahita ay ku darsadaan intii hore ee wadadan waxooda ku bixisana ilaahay bedel khayr qaba ha siiyo ha u barakeeyo waxooda jannadana ha ka waraabiyo